السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما ولا لها قيمها بدن كسر هذا كورس ذي بيس كمبيوترز كان كبرني ويندوز كويتمان iyo Windows 10 insha Allah maanta waxaan bilaabaynaa marka koorsadeeni intaana koorsada bilaabin oo casharka ugu horeysa waan ku baran doonaa haduu ilaahay interface-kan iyo qeybaha kala duwan waxaan jeclaystay marka qeyb yar wax weeyaan hardware computer-ka ku saabsan inaad wax yar ka fahanno kadib si aan ugu wareerin waxyaabaha soo socday aan baran doono insha Allah waxyaabahaas waxyaabo basic ah inta badan aan rajeynayo inaad garanaysaan wax weeyaan qofkii mar uu computer arkay xataa inuu garan karo qeybaheena ayaa marka koowaad in yar hordhac ku sameyn doona insha Allah waxaan ku hormari doonaa qeybta keyboardka wax weeye computerka kale tusaale inta kale ay nagu filan waxaan ku hormaraynaa waqti marka koowaad inta computerka ku dhex jirto mar walba waxaad maqli doontaa wax lagu magacaabo control C control V control Z waxyaabaha shortcut la isticmaalo weeye oo wax weeyaan hawshii fududeynaya dabcan wada dheer intaad mari lahayd ayaad wada ka sokay ama wada dhow mari karaysaa marka control horta waa kan midka lagu magacaabo keyboardkan waad ka fiirin karaysaa wuu ku yaala waa qasab kana waxa lagu magacaabo marka control C kana waxa weeye control C hadan maqasho marka waa controlki waa kan xarafkiina waxa lagu magacaabo C marka control C hadan maqasho waxa weeyaan controlka iyo xarafka C baa isla taabanaysaa marka control C hadan maqasho waa ka si la mid ah control plus C hadan maqashana waa la mid waxa weeye controlku waa ka keyboardka ka fiiri C-duna marka waa midkan fiidna waa ka control V dad maqasho waa ka inta horta waxyaaba ugu weyn koowaad aan baran doono control Z oo kale waan arki doonaa si wax loo soo ceshada marka controlka waa kan control Z iyo waa kuwaana qaybahaas oo kale la xariijinaa aad garanaysaa kana marka wax lagu magacaabo shift way ku qoran tahay keyboardkaaga saan rajeyna aad isku qornayna qaabkan kale u egyahay oo fallaartaas oo kale calaamad ah sida wax weeyaan keyboardka dhinka wax weey waxaad ka fiirinaysaa bidix ayaad ka fiirinaysaa shiftiga kana wax weeyaan interka iyo qaybteena aan u isticmaali doonaa insha Allah markii wax weeyaan space wax weey aad baxayso kale inter waxyaabahaas kale lagu dhigi doon marka wax weeyaan ama space kan caadiga isticmaal waxyaabaha keyboardka ugu weyn oo dhan qaybahaas ka mid ah marka anagu waxaan rabnaa inaan keyboardka guud oo sharaxno kale muhiimadeedu ma aha waxaan rabnaa in keyboardka qaybaha aan arki doono markii la yiraahdo kale control C in qofku uu wax weeyaan control wax la yiraahdo iyo sida meesha ay ku taalo inuu maleeyo wax gudaha computer ku jira qofkii fahansan waa ka qofkii aan fahmin waxa rajeenaya oo hore u fahamsan waxa fahmay control wuxuu ku yaala keyboardka oo wax weyn keyboard markaad fiiriso waa ka control meesha ku qoran gudaha keyboardka oo kala fiiri xaraf dabcan qaybta magacaan leedahay waa C T R L magacaas loo soo gaabiya kuwan waa xarfi caadiga A B C D oo dhan latiniga weeyaan marka control C control V control X waxyaabahaas oo dhan wax weeyaan waxyaabo la adeegsado marka inta sinaad ila fahantaan rajeenaya oo control iyo shortcut markii lagu tilmaamo aad garanaysaa insha Allah kana marka waa kan ka waas xireenaa qaybta waxaan kala sharaxaynaa marka aan baranayno qaybteena wax weeyaan muuska aad buu noo caawin doonaa wax weeyaan hawlo badan oo midka caadiga aan arki doono computer ku soo baxa oo qaybta wax weeyaan marabno ka oo kan wax weeyaan muuski weeyaan qaybtan u baahanahay marka music markaan isticmaalayno waxa loo qaybiyaa dabcan afartan qaybood qayb wax weeyaan fiiladan ugu horeysa waxaad heli karaysaa mid wireless oo bateriyaal galgaliya dabcan hadii aad suuq ka raadsato waad keenaysaa ka wax weeyaan fiiladan oo dhan waad ka maarmi doontaa hadii aad isaga aad isticmaalaysan waa okay ka waa ka qaybtan koowaad wax weeyaan ku hormaraya kan wax lagu magacaabo right click marka adigoo mus adeegsanaad maqasho right click dabcan wax weeyaan meesha bidixda ah ma aha qaybta midig guji weeyaan marka right click waa midig guji oo wax weeyaan midigta riix weeyaan qaybta midigta ah marka right click waa ka kana waxa lagu magacaabo marka left click wax weeyaan waa click baa loo soo gaabiyaa marka qaar oo left click qof ku dhihi maayo click hadaa maqasho marka waa kan qaybta bidix ayaad click leedahay laakiin right click marnaba wax weeyaan click lagu dhihi maayo oo click waxa loo isticmaalaa left click marka bidixda click hadaa maqasho waa ka marka kan isticmaal double click hadaa maqashana waa midkan isla kan weeyaan oo wax weeyaan qaybtaada marka muusudaad ku yaalo kala fiiri waa qaabkan oo kale laba saddex meelood buu leeyahay haduusan kuwa casriga ugu dambeeyay ahayn mid waa ka right click oo wax weeyaan dhinaca midiga midna wax weeyaan bidixda oo left click baa lagu magacaabaa wixii movina oo wax weeyaan shay la qaadayo meel la dhigaayo wax weeyaan kan asaga noo qaban doona marka waa ka kana waxa lagu magacaabaa marka right click wax weeyaan marka shay walba right click aad maqasho kana ayaad riixi doontaa insha Allah qaybtan dhexe wax weeyaan weelkan ama wax weeyaan qaybtan yar sida taayirka kale weeg oo inta badan socota waxa lagu talagalay waxyaabaha kor iyo hoos inaad socoto tusaale buug baad akhrinaysaa
buugga waraaqadaha weedka oo kale markaad akhrinayso inaad kor iyo hoos u socoto oo kale ama shay markaad kor iyo hoos u wado kale ayaad isticmaali doontaa asagana waa ka marka right click iyo left click asagana iyo iskaaga kala qaldamin mar walba double click lagu yiraahdo waa kan right click daa maqashana waa ka qaybtan waxaad ka fiirinaysaa marka computerkaaga iyaduna waxaad rajeynayaa inaad hortaada ka muuqato qaybtan waxa weeyaan waa right click tii waxa weeyaan computerka ay raahday qaybtan right click kana leh kana waxa weeyaan qaybtii right click waa ka qaybtan waxa weeyaan iyaduna waa u baahan tahay waa kan waa left click haddaad maqasho click waa kan mararka qaar wax macquul halkan laga isticmaalo double click computerada qaar oo kale way leeyihiin halkaan oo kale laba jeer dhagada farta ku siiso wuxuu u dhigmaa double click adoo meel yiro kale u dhigmaa clickna uu noqon karaa oo wax weeyaan hal mar haddaa click ku siiso meeshaan dhexena way noqon kartaa haddii iska xirnayd kana waa kan double click waa kan left clickna waa kan marka right click haddaad maqashid kan baad isticmaali doontaa marka waa ka intaas waxaan rajeynayaa practice gareyn doonto hadduu ilaahay idmo casharkeennan halkaas ayaan ka bilaabi doonaa la soco assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan walalaha qiimaha badan maanta waxaan bilaabi doonaa hadduu ilaahay idmo barashada basic computerka sidoo kale waxaan isticmaali doonaa iyo qaabka loo isticmaalaba fahmi doonaa kan lagu magacaabo Windows 11 marka haddii computerka Windows 10 ba ku jiro waxa weeyaan inta badan waa isku qaab wax yar ka kala duwan yihiin insha Allah ayagana waa sharxi doonaa haddii aad Windows 11 computerka ku jirana si hagaagsan ayaad ila socon doontaa insha Allah waxaan baran doonaa maanta sida mawduuceena ku qoran qaabka u shaqeeya desktopka iyo sida loo isticmaalo iyo waxyaabaha aan ka arki doono sidoo kale waxyaabaha hordhacad ku aragteen waxay ahaayeen oo aan ku sheegnayba in koorsada uu fahmi karo qof bilow iyo qof dhexdhexaad ah waxaan ka bilaabi doonaa halka ugu hooseysa waa maxay desktop sidee buu u shaqeeyaa iyo wixii la halmaala oo meesha ugu horeysa marka computerka marka la sharxayo basicgiisa meesha ugu hooseysa oo laga bilaabo ama halka uu ka bilowdo waa shadan aad arkayso shadan ayaan ka bilaabi doonaa marka sidee baa loo isticmaalaa sida loo isticmaali doona insha Allah marka halka waxa lagu magacaabaa desktop waxa ka soo muuqan doona waxyaabaha folderada kale iyo halka ugu horeysa oo wax weeyaan interface-ka koowaad ee computerkii noo ah marka koowaad waxaan ka bilaabi doonaa wax macquul ah waxyaabaha halkan aad ka arkayso recycle bin-ka PC-ga inaysan ku furnayn oo ay ka maqan yihiin ama qeybo ka mid ah ku joogaan oo ay ka maqan yihiin ama inaad u baahnayn halka laga soo furto iyo halka laga xirto ayaan ka bilaabi doonaa insha Allah marka koowaad waxaan leenahay horta computerkeena aniga mouse-keena isticmaalaynaa ama wax weeyaan qaybteena caadiga waxaan leenahay right click kadib waxaan ku dhufanaynaa marka halkan ku qoran tahay show more option adiga wax macquul ah inaysan ku lahayn oo aad Windows 10 isticmaalaysid laakiin halkan hoose ayaa mar walba u baahanaa inaan ku dhufano oo lagu magacaabo personalize halkaas ayaan ku dhufanaynaa kadib waxaan noo soo furmi doonaa maadaama Windows-kan uu yahay nooc ugu dambeeyay 2021 aad loo adeegsado oo Windows ka dambeeya ma jiro xilligan kadib waxaad dooranaysaa marka halka lagu magacaabo themeska qaybtan ayaad dooranaysaa kadib marka waa kuwan waxaan ka dooranaynaa marka desktop icon setting halkaas markaan kali ku siino waxaan tig saaran doonaa marka qaybteena computerka sidoo kale waxaan tig saaraynaa haddaan u baahnaa network-ga recycle bin-ka oo kale waxyaabaha dhan mid walba ay tigtu saaran tahay wuu muuqdaa kii aysan tigtu saarnayn wuxuu noqon doonaa mid aan ku jirin marka hadda waxaan ka saaraynaa marka computerka oo kale labadan iyo saddexdan ayaan deen doonaa xataa waxaan ku daraynaa control panel-ka oo kale ku dar marka labadan u baa tig saaraynaa kadib waxaan leenahay okay marka halka markaan arkayno labadood aan tigta saarnay bas ayaa ku jira kii aan tigta ka qaadnana way ka maqan yihiin si aan usoo furanayna marka waa isku qaabkii oo kale waxaan leenahay right click kadib waxaan leenahay show more option waxaan ka dooranaynaa marka personalize kadib waxaan dooranaynaa marka themes waxaan ka sii dooran doonaa hadduu ilaahay idmo desktop icon setting kadib aan tigta saaran doonaa computer control panel-kan waa ku darsanaynaa haddii aan rabno kadib waxaan leenahay okay kadib inaga xir marka waa kuwan labadoodii xabo ama afartoodii aan yiraahdee halkan inoo yaal marka soo furashada qaabkaasi waa halkaas ka bilaabataa meesha ugu bilaawdo halka haddii PC uu ka maqan yahay haddii qaybtaan ay ka maqan tahay dhammaantood shaqada ay qabtaan waa baran doonaa laakiin soo furashada marka koowaad ashyaada desktopka ku caanka ah halka ayaa laga soo furtaa sidoo kale folder dad samaysato sawir dad soo dhigato intoo dhan way ka soo muuqan doonaan laakiin kuwan meesha aad ka soo waxaan kaloo ku daraynaa marka sida la mid ah haddii aan right click idhaahno anagoo adeegsanayna computerkeen waxaa noo soo bixi doonaa shadan waxay noo qaban doontaa marka inta qusaysa desktopka ayaan ka bilaabi doonaa kan koowaad waxaa lagu magacaabaa view-gu waa inuu qaab inuu ugu soo muuqdo iconskan in afar xabad waaweyn noogu soo muuqdaan leerji waa inaan doorano
oo qaabkan kale ayuu nagu soo muuqan doonaa sidaad arkaysa aad ku waaweyn haddii aan rabno view aan ku laabanayno waxaan ka dhigaynaa mid dhexaad oo medium qaabkaas kale noqon doonaa haddii aan rabno waxaan ka dhigi karaynaa waxa weeyaan view inta tagno qayb small oo kale aan ka dhigayn aad u yar marka qof walba indhihiisa iyo qaabka wax u arkay u xiran tahay haddii indhahaagu ay daciif yihiin oo kale waxaad adeegsanaysaa mid ka waaweyn haddii indhahaagu ay fiican yihiin ama dhexaadka dadka caadiga oo dhan waxay geystaan qaybta dhexaadka oo kale sidaas oo kale ayay okay ku noqonayaan marka waa muuqashada right click markaad tiraahdo viewgu waa qaab u soo muuqan doono saddexdaas step waaweyn dhexaad iyo yar saddexdaas waa ka waxa ku xiga saddexdan kale midkan koowaad marka waxa lagu magacaabaa auto arrange iconsku muxuu noo qaban doonaa haddii aad tig buu saaran yahay haddii aan tigta ka qaadno dabcan waxa weeyaan xor baan u nahay oo meeshaan doona ayaan dhiganaynaa kanoo kale meel baan dhigan karnaa kanna meel baan dhigan karaynaa kan waa kan kaas halkaasaan geysanaynaa waxa weeyaan wax walba anaga qaadi karnaa laakiin hadday tigtu saaran tahay maxaa jira wuxuu isku aruurin doonaa hal meel kii aad dabcan inaad qaaddo booskiis ayuu kusoo laaban doonaa mana kaa yeeli doona inaad qaaddo oo boos kale aad geyso oo wax weeyaan inaad isdaba marinayso wixii la halmaalo kale waa macquul laakiin inaad meel cidlaa halkaas kala dhigto sidii data aan sameynaynay ma samayn karaysid auto arrange wuxuu kuu samayn doonaa marka waxaagoo dhan inuu qaabkan oo kale ka dhigo isku toosiyo ka waa ka midka ku xiga marka wuxuu noo qaban doonaa align-ku kana tigta aan ka qaado kanna wax weeyaan ku xigana tigta aan ka qaado si aan u aragno waa ka align wuxuu noo qaban doonaa waxaynoo kale line toos inaan ka dhigno tusaale hadda wax line male kan halkaan iska yaal kana sidoo kale halkaan iska yaal kulli waa isdul fuushan yihiin wax align ama sharci oo kale celinayo kale male waa ka haddii align tig noo saaraya muxuu noo qaban doonaa waxayna hal line buu noqon doonaa tusaale hadda tigti aan saarano waa ka ama line-kan raac oo wax weeyaan qaabkan ama line-kan raac waa ka line-kan iyo line-kan waxayna dhan waa line laakiin waxaa naga maqan auto arrange-gii baa naga maqan oo wax weeyaan ma samayn karayno wax weeyaan qaybtan baa naga maqan oo toos line-ka isku aadimayaan laakiin align wuxuu noo qabanaya waxay tahay inaan dhinacan doonno aan dhigi karaynin oo ah inaan wixii isku aruurin karaynin wuu ka layminayo leen tooskan ka dhig midna tooskan ka dhig shaqada ayuu noo qabanayaa marka kan waxaa leenahay auto arrange-na ku dar line toos ayuu isku iman doonaa marka waxaa leedahay right click viewga labadan tika kuu saarnaada kan wuxuu noo qabtaa baan idhi waxayna waa midka qaabka ka dhigaya inay isku toosiyaan kan kale wuxuu ka dhigayaa wixii inay line galaan ama wax weeyaan qaabkaan noqdaan ama qaabkaas inay noqdaan oo kale ayuu noo samaynayaa waa ka kan muxuu noo qabanaya marka ugu hooseeya horta saddexdan waa sheegay kan muxuu noo qaban doonaa kan waa midka ugu daran haddii aad iska xirto tiraahdo show desktop iconsku qaabkan bay noqon doonaan qofkii marka aan fahansanayn marka ugu horeysa isticmaalka computerka waxa macquul ah inaad u malaydo in ay kaa xiran yihiin dhammaan macluumaadkii ama wixii aad halkan soo dhigato dhan ay kaa xiran yihiin marka waxaad samaynaysaa marka waxaad leedahay right click kadib waxaad leedahay view show desktop iconsku oo kale ayaa tig saaranaysaa marka waxa weeyaan qaabka ayuu kugu tahmi doonaa oo kugu shaqeyn doonaa dhammaantood waa ka uu noo soo noqday haddii adigoo computerkii basicgiisa ku cusub aad tiraahdo right click view aad doorato kadibna waxa weeyaan show desktop aad iska xirto oo kale aad ilowdo kadib waxaad u malaynaysaa marka cillad computerka inay haysato heer aad gaarto meelo farsamo oo kale inaad geyso laakiin right click dhe view dooro show desktop iconska muuji weeyaan haddii waxa weeyaan qaabkaan kala ogyahay marka tigta haday saaran tahay dabcan way muuqdaan waa kan waxaan ku sheegnay inuu waaweynayno kan waxaan ku sheegnay inaan yaryarayno kana waxaan ku sheegnay inaan yaryarayno kana waxaan ku sheegnay inaan small ka dhigno kale sidoo kale kana wuxuu noqon doonaa inaan ka dhigno line toosa kana waxaa ka dhigi doona daba kan wuxuu noo noqon doonaa inay qaabkan isku xigsadaan oo aysan kala lulumin kan ku xigan wuxuu noo qaban doonaa marka line inay galaan oo wax weeyaan ama leftiga ama right-ka ama wax weeyaan column iyo wax weeyaan row inay u saftaan ayuu noqon doonaa ka waxa inoogu xiga marka kan marka sort by-ga muxuu noo noqon doonaa kan waxaan ka dhiganaynaa marka in magacyada hadda waad arkaysaa SBC waa kan inay sida u kala magac horeeyaan oo kale ay soo kala hormaraan waa samayn karnaa oo name-ka kale ayaan isticmaalaynaa iyo waxaan kaloo samaynaynaa marka inay u kala size sida u kala size weyn yihiin oo kale inaan samayno haddii wax weeyaan size-ka ku doorato waa control panel-ka size ahaan bay kala dugnaan doonaan haddii aad u doorato marka item ahaan dabcan sawirdu wax way PNG yahay JPG hadduu yahay haddii dukumiintiyadaas ay u kala horeeyaan ayuu kala hormarin doonaa asagana haddii aad u doorato sidoo kale sort by-ga muxuu noo noqon doonaa qaybtan u hooseysa data wax weeyaan modify wuxuu noqon doonaa taariikhdii la soo geliyay sawirada marka waa maxay iga anfacayaan waxay ka anfici doonaa ilaa idankiis shay baad soo gelisay desktopka macquula sawiro badan iyo ashyaa badan ay ku yaalaan markaad soo dhigato marka name iyo size iyo waxaad ku raadinaysaa midkan shayga waxaad tiri shayga ugu dambeeya desktopka soo dhigay
oo magaciisa ama wixii baad ka dhex weyday alaab badan ku taala macquul oo shayaal badan meeshan ku safan yihiin folders badan sawiro badan waa gaarayna insha Allah hadhow markii iga lumaa marka wixii aan kala qoon waayo waxaan iman doonaa halkan waxaan dhigi doonaa right click sort by baan dhigi doonaa data modify baan dooran doonaa shaygan wuxuu noqon doonaa shayga u soo horeeya ayuu u noqon doonaa maadaama taariikh ahaan asaga ugu dambeeyay halkaas u mari doonaa waa ka labadoo marka waa ka magac ahaan u soo kala hormari saas ahaan u soo kala hormari waxa weeyaan time ahaan u soo kala hormari kadibna data modify samee xilliga ugu dambeeyay shaygan uu la soo galiyay waa ka kadib waxaynu ugu xigi doonaa marka refresh inaan refresh ku sameeyno wixii dabcan cusboonaysiina wax macquul ah shaydan halka ku soo darsaday ka arki kadib waxaad leedahay refresh gare si wax weeyaan waxyaabaha desktop ku yaalahay ay si refresh ahaan ama wax weeyaan cusboonaysiin ahaan ay u soo gali doonaan insha Allah marka halkaas ayaa ku soo gabagabeynayna marka qaybteena insha Allah waxaynu ugu xigi doonaa project sida loo sameeyo folder cusub folderada magacyadooda renaming sida lagu sameeyo qeybahaas oo dhan insha Allah waxaan rajeynayaa adigu inaad practice garan doonto sida u shaqeeyaan dhamaantood faraha ka shaqeysii halkaas ayaan ku soo gabagabeynayna marka qaybteenan la soo qaybta ku xigta